kulanti waxana wanaagsan daawad ilaa hantin meel walba joogtaan waxaad leenahay ku soo dhawaada barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha ee toddobaadkan barnaamijkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa qodobo dhowr ah oo ay kamid yihiin Partey oo ka tagay kooxda Arsenal Enzo oo Arsenal dardar gelinaysa sidii ay kula soo wareegi lahayd sidoo kale Tammy Abraham oo asna sidoo kale ku biiray kooxda Besiktas ee dalkaasi Turkiga 4 sano oo heshiisna u saxiixay Joy Pedro oo ku sii jeeda dalkaasi Mareykanka si oo markaasi uga qayb qaato ciyaaraha ay kooxda Chelsea u ciyaareyso Club World Cup-ka Ronny Bradley oo asna sidoo kale ku biiraya kooxda Barcelona qodobadaasi kuwa kale ayaanu markaasi ku daafuri doonaa barnaamijkeena ciyaaraha toddobaadkan haddaba saaxiib haddii aad nagu cusub tahay fadlan inoo follow gareey page-ka YouTube-kana sidoo kale inta subscribe inoo saar share-ta iyo comment-igana hanaga ilaawin aynu ku bilaabay kooxda Arsenal ayaa waxa ka tagay laacibkooda weyn ee Thomas Partey asigoo markaasi kontraktigiisa ama heshiiskiisa qandaraaska ahaa uu idlaaday Partey waa uu ka tagay kooxda Arsenal wali waxayna sidoo kale inta sheegtay kooxda inay dhawaan imaan doona ciyaaryahanka ka imaanaya Brentford oo markaasi ay ku bedeli doonaan Partey booskiisa Partey ayaa la xasuusan yahay kooxda Arsenal oo joogay 3 sano waxaana markaasi ciyaar weyn oo lafdhabar u ahaa qadka dhexe oo difaaca iyo waliba qadka dhexe isku celin jiray Partey ayaa markaasi lagu xasuusan doonaa kubadaha qaarkood oo cariiriga ah oo markaasi kooxda ka badbaadin jiray Arsenal ayaa sidoo kale dardar xoogan ku suubinaysa suuqa dalkaasi Ingiriiska iyo waliba caalamka qiimihiisa kala duwan ee qaaradda Yurub sidoo kale Enzo ayaa waxay markaasi wada hadal la furtay ciyaaryahanka kooxda Arsenal waliba waxay doonaysaa inay Enzo ay la soo wareegto dhawaan oo ay sheegeen inay markaasi si xoogan oo markaasi wada hadal iyo wada xaajood ay ugu jiraan ciyaaryahanka sidoo kale kooxda Crystal Palace ayaa iyadana sidoo kale waxay doonaysaa in ciyaaryahanka dirto laakiin haddii ay hesho qiimo macquul ah oo markaasi ay ku diri karto Arsenal tartankan waxa kula jirta kooxda ay markaasi North London Derby ay iskala xifaaltamaan ee Tottenham Hotspur Tottenham ayaa iyadana sidoo kale inta doonaysa Enzo inay la soo wareegto laakiin waxa si weyn markaasi u quudareynaya xilligan sida markaasi la sheegaya in kooxda Arsenal ay doonayso inay la soo wareegto Enzo ayaa waxay u aragtaa Arsenal inay markaasi ku bedelan karto booska Gabriel Martinelli ama sidoo kale Bukayo Saka haddii midkood oo dhaawacmo sidoo kale waxa markaasi doonayaan inay Arsenal ay keenan ciyaartoy dhowr ah oo qadka dhexe iyo waliba difaaca balse wili ceebta haysata Arsenal ayaa waxa ay tahay 3 sano oo xiriiran ay u tartamayeen kaalinta labaad ee ka foqi waayeen oo kaalinta koowaad looga qaadayay si daqiiq ah ciyaaryahan afka hore kaga dheela ama striker ama 9 ciyaaryahanka sidii loo yaqaano ciyaaryahanka goldaliyaha kooxda Arsenal ayaa imikan la leeyahay labada ciyaartoy ee doonteen Benjamin Sesko iyo waliba ciyaaryahanka Gyökeres ayaa markaasi waxay yihiin kuwa aan u cadeyn xitaa inay Arsenal ku biiri doonaan Tammy Abraham ayaa sidoo kale waxa 4 sano heshiis u saxiixa kooxda Besiktas oo kaga soo wareegay kooxda Roma ee dalkaasi Italy Besiktas ayaa waxay ka dhisantaa dalkaasi Turkiga waxayna ka mid tahay kooxaha ugu waaweyn ama ugu tunka weyn ee ka dheela horyaalka dalkaasi Turkiga sidoo kale Tammy Abraham ayaa waxa la filayaa inuu dhawaan ku biiro kooxdaasi asigoo markaasina u marayo tijaabada caafimaadka ku mari doona dalkaasi Turkiga Joy Pedro ayaa asna sidoo kale waxa uu maanta u duulay dalkaasi Mareykanka waxaana saxiixay heshiis gaaraya 2000 ilaa 2032 7 sano oo heshiis ah Joy Pedro iyo wakiilkiisa ayaa dhawaan waxay u duuleen dalkaasi Mareykanka si uu ugu biiro kooxda leerado Chelsea ay markaasi ay la wareegtay ciyaaryahankan Joy Pedro waxa markaasi ka ciyaari jiray dalkaasi England waliba kooxda Brentford ayuu markaasi kooxda Brighton Albion ay u dheeli jiray Joy waxa markaasi ku qaadan doona medicalka ama tijaabada caafimaadka dalkaasi Mareykanka waxaana ka mid yahay ama liiska kaga jira ciyaartoyda Club World-ga u dheelaya kooxda Chelsea qodobkeena ugu dambeeyay barnaamijka ciyaaraha Ronny Bradley oo markaasi ku biiraya kooxda Barcelona si uu kaga soo biiraya kooxda Copenhagen waxaana la filayaa dhawaan in markaasi oo maro tijaabada caafimaadka ee kooxda Barcelona u maro haddaba daawade haddii aad nagu cusub tahay follow inoo dheh page-ka sidoo kale YouTube-kana subscribe inoo saar sii share garay oo markaasi commentiga wixii fakarkaaga ah inoogu reeb
mahadsanid saaxiib intaan dib ugu kulmi doono barnaamij cinkan oo kale inta waa saaxiibkiin baryood. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.